xulul dhab ah oo aan aniga tijaabiyey qofkan uu isaga yarayn karo isticmaalka mobilka ayaan soo bandhigi doonaa haddii ilaahay idmo. Mobilkeena marka haddaan isla eegno walaalayaal, hadda halkan waxaa iga yaallo mobile iPhone ah. Waxaa la yidhaahdaa iOS systemka uu ku shaqeeyo. Haddii aad geeskaanayta saad u wado aad geeskan bidixa aad soo saarto, waxaa kuu soo baxaya waxyaabo badan. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم walaalayaal saaxiibayaal soo dhawaada mar kale walaalkan Cabduuli Khaliif. Waxaad arkaysaa macallin arday quraan ka dhageysanaya isla markaana mobilka kor iyo hoos u wado. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. sidoo kale waxaad arkaysaa mas-uul u adeegaya muwaadin laakiin haddana kaga mashquulaya mobilka oo markuu cod ka soo yeero mobilka haabanayo isla markaana mobilkiisa kor iyo hoos u wado. sidoo kale waxaad arkaysaa arday wixii laga rabay inuu akhriyo kaga mashquulay mobil oo mobilkiisa waqtiga ugu badan ku qaadanaya isagoo is ogeyn wixii uu isiri akhrina aan waxba ka qaban. sidoo kale waxaad arkaysaa marwo gurigeedii iyo ilmihii ay mas-uulka ka ahayd dayacday, mobilka dhamaatana kusii jeedo gurigii uu silacsan yahay, sidoo kaleetana ilmihii ay dayacan yihiin. walaalayaal tusaalooyinkaas waxa weeyaan mushkiladda mobilka oo runtii aad bulshada qaybaheeda kala duwan ugu faaftay, ama ha ahaado macallin ama mas-uul ama marwo ama arday. intaba waxay ka siman yihiin in mobilka waqti aad u badan lagu bixiyo mas-uuliyadihii qof walba saarnaana hadduusan qayb ahaan dayacin oo in badan oo ka mid a dayacay. haddaba muuqaalkan waxaan doonaya walaalayaal inaan kusoo bandhigo xalka mushkiladda mobilka. xulul dhab ah oo aan aniga tijaabiyey qofkan uu isaga yarayn karo isticmaalka mobilka ayaan soo bandhigi doonaa haddii ilaahay idmo. laakiin intaanan soo bandhigin, marka hore waa inaad ogaato xajmiga iyo heerka mushkiladdan ay leedahay. daraasado la sameeyey waxaa lagu ogaaday celcelis ahaan in qofka caadiga ah uu mobilka ku qaato 6 saacadood oo maalinkiisa ka mid ah. 6 saacadood markaan leenahay qofka waa dhexdhexaad ama celcelis inta uu qofka ku qaato, macnaheedu waxa weeyaan 50% dadka way ka sarreeyaan 6 saacadood oo 9 iyo 8 iyo 10 bay gaarayaan. 50%na way ka hooseeyaan oo wax 6 saacadood ka yar ay ka isticmaalaan. marka mushkiladaada mid weyn ma aha haddii aad 50ka hoose ku jirto, laakiin haddii 50ka sare aad ku jirto oo intay bulshada say u badan tahay, maxaa xal ku ah? intaan xalka u gudbay walaalayaal, marka aan dhahno average-kaas ba aan qaadano 6 saacadood aan qaadano isbuuci meeqa saacadood ayaad ku bixisaa mobilkaaga, meeqa saacadood baa kaaga baxdo haddii aan dhahno 6 saacadood baa isticmaal. taa micnaheedu waxa weeye 42 saacadood inaad ku qaadato mobilka isbuuci. 42 saacadood isbuuci haddaan dhahno bishi waa 4 isbuuc. bishii micnaheedu waxa weeyaan oo 42 aad ku dhufato 4 waxa kuu soo baxayso 168 saacadood inaad bishi ku qaadato mobilka. haddii aan dhahno sanadkii waa 12 bilood oo aan tiradii hore ee noo soo baxday ku dhufana 12, waxa weeyaan 2016 saacadood ayaad sanadkii ku bixisaa mobilkaaga. waa haddii aad average ka tahay qofka dhexdhexaadka. haddii aad ka sarreyso 10 iyo wixii ka badan aad tahay, taa micnaheedu waxa weeyaan xaaladdaada adiga way kasii daran tahay. markaan leenahay 2016 saacadood haddaan bilo u bedelno, waxaa noo soo baxayo 3 bilood inaad mobilkaaga ku bixiso sanadkii. sanadka haddii 4 meelood loo qaybiyo meel ka mid ah, micnaheedu waxa weeyaan waxaad ku bixisaa mobil isticmaalkiisa. ma qiyaasi kartaa 12 bilood oo sanadka aad haysato 4 meelood markii loo qaybiyo qayb ka mid inay mobilkaaga baxdo inta waqti ee aad mobil ku bixisa. taa micnaheedu waxa weeyaan noloshaada qayb ka mid ah ee mobilkaaga baxdo. mobilka dad wax qiimo leh ku qabanayso waa goonideeda oo aad ku shaqaynayso saacadahana ay kaaga baxayaan faa'iidaysi. laakiin meeshan waxaan ka hadlayna waxa weeyaan saacadaha maala yacni madaalada lagu bixinayo dhibka ay leeyihiin. haddii aad marka 6 saacadood ka badan tahay oo aad 10 saacadood ama 8 saacadood ama 7 saacadood aad ku bixiso mobilkaaga, haddii mushkilad aad u weyn baa ku haysato waqtigaagana mobilka kaa qaatay wuuna ku saytarayay. soo marka sideed ku ogaan kartaa inta saacadood mobilka aad ku bixisa? itus oo taabsi aan rameeshan inaan ku tuso inta saacadood ee mobilkaaga baxdo, ama haddaad Android isticmaalayso iyo haddii aad iOS isticmaalayso iPhone iyo telefoonada Android ka isticmaalaysaba balaan isla eegno. mobilkeena marka haddaan isla eegno walaalayaal, hadda halkan waxaa iga yaallo mobile iPhone ah. waxaa la yidhaahdaa iOS systemka uu ku shaqeeyo.
haddii aad geeskaanayt saad u wado aad geeskan bidixa aad soo saarto waxaa kuu soo baxaya waxyaaba badan waxyaabaha waxaa ka mid ah dabcan ani wixii kale waan iska tirtiray laakiin adi wax kale inay kuu soo baxaan baa laga yaaba laakiin aniga waxay soo baxaya 4 saacadood iyo 56 daqiiqo inaan mobilka maanta ku qaato waxaa sidoo kale ii soo baxaya aabiska ugu badnaa aan isticmaalay WhatsApp tartiil YouTube iyo Setting iyo Facebook haddii aan sii dhex galo mid kasta inta saacadood ee aan ku bixiyay ayuu ii sheegaya tusaale kale WhatsApp saacad iyo 41 daqiiqo ayaan ku bixiyay YouTube-ka waa saacad iyo bar Facebook saacad iyo 20 daqiiqo aan isticmaalahay tartiilna waxaan isticmaalahay oo ah app quraanka laga akhriyo ayaan ku shaqeeyay marka la sharxi doonaa waa 14 daqiiqo haddii aan marka waa maalintii taas haddii aan marka 5 saacadood baad isku bedesho inta isticmaalaha hatta wuu xisaabiyaa 5 saacadood ba isku bedesho iyo 4 daqiiqo haddaan weekly galo average-kayga waa 6 saacadood iyo 10 daqiiqo aabiska ugu badan aan isticmaalahay waa kana WhatsApp baa ugu sarreeya ugu badan waa 14 saacadood iyo 46 daqiiqo Facebook baa ku xigo waxaan isticmaalayaa 7 saacadood Facebook waxaan ku xiray maalinkii saacad inaan isticmaalo waan idin tusi doonaa mar dhow xuluushay ka mid noqon doontaa laakiin xajmiga mushkiladda raba inaan ogaado moogtahay isla ogaano aabiska ugu badan inaan isticmaalaysa inta saacadood isticmaalaysa mobilka inaad ogaato sidoo kalena waa inaad ogaato maxay aabiska ugu badan ee aad isticmaalaysa marka aniga waa WhatsApp Facebook tartiil 6 saacadood baan ku qaatay waan isticmaalayay taqriiban maalinkii saacad camal oo kaleeta inaan quraan akhriyaan isku daya YouTube 5 saacadood ayaan ku qaatay Google Maps ayaa ii soo raaco shaqadeeda ku xiran oo 3 saacadood wax ku dhow aan isticmaalaya drive gareynayo okay marka daily average inta pick up ku siinaa xataa inta maray aad telefoonka soo qaato ayuu ku siinaa waxyaabo badan ayuu ku siinaya iyo aabka ugu badan ee aad adeegsato baadi marka fiiri arrinta ayada ah si aad mushkiladaada xajmiga iyo inta kala egta aad u ogaato haddii aan marka intaa ka gudbo walaalayaal ama intaanan u gudbin xuluushii aan idiin iri waan idiin soo bandhigay waxaad samayn karto waxaan rabaa sidoo kale inaan isla fiirino telefoonka Android-ka sidaasoo kale haddii maxaa la yiraahdaa aad isticmaalayso telefoon Android ah waxaa jira wax la yiraahdo digital well-being hadaad seegayso iyo parental controls yani haddii xataa ilmahaaga ay isticmaalayaan telefoon waad ka xakameyn kartaa waa kana daily usage waa 3 saacadood 48 daqiiqo kan la isticmaalay WhatsApp Facebook iyo codadka meesha laga daaro ayaa ugu badan waxa la isticmaalay soo waxa la yiraahdaa sidoo kale screen time okay labadaba marka Android-ka iyo iOS-ka iPhone-ka ama telefoonada Android-ka sida Samsung iyo wixii la mid ah waxaad awoodaa oo aad galaysaa system-ka si aad u ogaato macnaha arrintan kadibna waxaad ku qoraysaa digital well-being okay xagaas aad kasii galaysaa kan Android-ka haddaan isla fiirino waxaan ka wada iOS-ka iPhone-ka haddaan isla fiirino hadda setting-ka haddaan galo waa kana screen time ayaa la yiraahdaa setting-ka meesha ugu hooseysa haddaan ka galo waan raadin karaa laakiin waxaa ka fudud inaan waa kana haddaan hoos u wada screen time baa ku qoran haddii kalena setting-ka wuxuu leeyahay search-gaad ku qori kartaa soo hadda aan galna screen time markaan galno waa kana waa 6 saacadood daily average-ka iyo 11 minutes aan hore hadda soo aragnay xuluushii aan u imaana marka xajmiga mushkiladda haddaan oo isna isaga xakameyn karaa halka koowaad horta aabiska aad ugu isticmaal badan tahay inaad weekend-iga kale isticmaasho oo aad iska tirtirto halkaas muuqaalo hore nooga hadlaa jiro oo xuluul noocan ka duwan hadda aan soo bandhigay aan ku soo bandhigay laakiin kuwa haddii ku anfacaynin waxaad samayn kartaa waxa weeyaan kow oo xalalka ka mid ah downtime wax la yiraahday leeyahay yuu leeyahay iOS-ka kale tusaale haddaan aan isticmaalo ama telefoonada iPhone-ka downtime waxa weeyaan in telefoonka saacado gaar ah aad iska xanibto iskana xayirto waxaad leedahay tusaale kale from 11 p.m. ilaa 6 a.m. telefoonka inuu xirmo aawakoo dhan ay xirmaan isaga dhan oo maaragta xirmo ayaad maxaa la yiraahdaa samayn kartaa oo hadda downtime-kayga aniga aan isla fiirino downtime-kayga schedule haddaad ku dhufato meeshaan baad furaysaa kadib waxaa kusoo baxay everyday aniga waxaan iri 11 p.m. ilaa 6 a.m. inuu mobilka xirnaado aabiskan inaan aniga steps dheeraad maro oo aan furo mooyaane ma ii furmaayaan waxay shaqeynayaan malaha soo taadi caafimaadkaaga ku jiro intaad hurudood seexanayso nasanayso inaad telefoonka iska xirto caafimaadkaaga adiga ayaa ku jiro okay taa waa xal downtime-ka waad badin kartaa aad inta hartaad ka dhigi kartaa tusaale kale waxaad ka dhigi kartaa from 6 p.m. to 6 p.m. waa adag tahay wicitaan iyo shaqooyin iyo waxbaa laga yaabaa kaaga xiran yihiin okay maxaa kaloo la samayn karaa waxaa kaloo la samayn karaa wax la yiraahdo app limits
يعني aabka aad ugu isticmaal badan tahay madadaaliya waqtiga kaa lumiyo inaad u xadido saacad anoo kale hadda tusaale ahaan facebooka iyo x-kan laga yaabaa inaan marmar qaar aan furo ama aan isticmaalo inta badan waqti waad isiloobaysa aslan adoo waxaad arkaysa dhowr saac iska dhex socdo marka waxaan ku xiray hal saac maalinka inaan isticmaali karo waa hadda markii aan idin tusahayay inta saacadood mobilka aan isticmaalo isbuuci 7 saacadood baa iisoo baxaysa saacadda hadduu isxir dibdib uma furo khalaas soo adiga habka aad u isticmaasho waqti ku xiro waqtigaas saacad baad ka heli kartaa saacad baad ka badan kartaa laakiin ani ma qabo app ay muhiim tahay in saacad ka badan la isticmaalo oo aan whatsapp ahayn inuu jiro ma u maleynayo whatsapp maadaama wicitaanka iyo koolka iyo ehelka iyo dadka iyo shaqadii ay ku xiran tahay anoo kale hadda whatsappka intaan shaqada ku jiro dhan whatsapp ay shaqadii ku xiran tahay marka waxaan u baahanahay dadka contactiga la dhexeeyay iyo messagingki iyo approvalska iyo shaqooyinka ayaa ku xiran waxaa lagama maarmaan adiga marka in aabiska madadaalada ee waqtiga tiktok oo kale aad isticmaasho aniga isticmaalo tiktok mar baan yar account yar furada maalmo dhow aragtay dib adana waan iska xiraa isaga dhan waan deactivate gareeyay sababtoo ah wax maaragtay waxaa badan maala yacnigiisa aad u badan marka adiga aababka aad waqtiga ugu badan ku lumiso horta time ku xir saacadna ha ka badan taa waa xalka labaad soo xalkood maxaa niri waa down time waa in waqti uu jiro taleefanka waa aad isticmaalin aabiska si u leeyihiin kulligood taleefanka dhan xalka labaadna maxaa niri waxa weeyaan waa time limits inaad ku xirto waqti kuwa aad u isticmaasho isla markaana aadan ka maarmin downtime markaad aababka aad rabto inaad furto ama app limitska 3 option ku siinaa markaad dib u rabto inaad u furto adiga aad u furto uu ka xirmay inaad dib u isticmaasho aad rabtaa wuxuu ku siinaa option 1 minute inaad isticmaasho ama 15 minute ama ignore for today marka waxaan ku talinaa maximum 15 minute inaad dheeraad inaad ka codsato inuu ku siiyo oo aadan isku fasixin oo dhihin ignore for today unless it's weekend haddii ay weekend ama isbuuca dhamaadkiisa oo aadan doonaynin inaad wax badan isticmaasho muuqaalka walaalayaal arrimahaasaan jeclaystay inaan idinkula wadaago haddii adiga xalal ku gaar ah ama waxyaabo gaar ah oo isticmaasho ay jiraan commentiga noogu reebsay dadka uga faa'iidaystaan wixii talo iyo sixitaan iyo tusaaleynana noo dhaaf aad baa idin salaamay walaalkan cabdullah khayr assalaamu calaykum